بسم الله الحمد لله ما دونهاyo guud ahaan waxaan ku habanayn xubnaha golaha wakiilada iyo shakhsi kamida golaha wakiilada inaan halkan kaga qowlo kuna raali noqon maayo waxaan dastuur iyo xeer hoosaadka iyo shariicada waafaqsanayn qofkii halkan kaga hadla ku raali gelin mayno waxa laga hadlay qodobo dastuur ah oo ka hor imanayo qaabka ay ku xiran yihiin dadka loogu magac daray burcadbadeeda ee ahaa muwaadiniin kalluumaysi ku jira shaqadoodii iyo howlmaalmoodkeedii ay badda ka qabsanayeen ku jiray waxa laga hadlay xeerkan inuu ka hor imaanayo mudanahan qodob dastuuri ah ku hadlin oo qodob xeerka ka hor imaanaya awoodeynaya oo awoodii golaha intuu ka qaaday aan aaminsanayn codkooda iyo gacantooda iyo dastuurka iyo xeerko inay meel gaari karaan aan aaminsanayn waxa u fiicnaan lahayd inuu ka aamuso mudanayaal ma rabo inaan badiyo innagu waxaan leeyahay daraawiish sayidku markuu u soo jeediyey geeda kani maqalalan yahaan saaka joognaa ninkii badbaadiyey gambool buu ahaa sayid haddii adiga lagaa baqaayana geeda kani waa qalalan yahay haddii alla laga baqaayana waa qoyan yahay ninkii u arkaa qaranka hay-addii u sarraysay innagoo ah inaynan meel wax gaadhsiin karin waa geed qoyanoo la yidhi waa qalalan yahay mudanayaal waxaan doonahayaa inaan runta ka sheego innaga xeer ilaalintu shalay waxay u soo gudbisay golaha wakiilada oo guddoonku u horreeyo arrin faahfaahsan oo caddaynaysa sharci darrada ay dadkaasi ku xihan yihiin mar haddii dastuurkii laalay xeerkana ka hor yimi waa inaynu laalnaa aynaan markhaanti beenaale noqon waa inaynaan dadka bannaanka jooga oo ama 4 milyan ama 12 milyan oo Soomaalida ahina ayan dhageysanayn inagoo dad wasac bartumayna meesha golaha dhexdiisa mudanayaal marar badan baa lagu qacelceliyay wasiirkuna ku hadlay maamulka Soomaaliland inay sharci darro sameeyaan waxaan u arkaa dadkii meesha ku xirnaa cidigeeda ay sharaftooda inay ilaaliyeen iyagoo waliba doonahaya aqoonsi in loo aqoonsado inay wadan gaar ah yihiin innagoo dawladda Soomaaliya kamid ah oo dawladda Puntland waa inaan ku dhiiranaa inaan dadkeena cidigeeda sharaftiisa ilaalino nimanka waa cadaatay sharci darro inay ku xiran yihiin waa inaynu laalnaa oo shaqada taynu leenahay qabsanaa in guddi gaar ah iyo la yiraahdo ha qabteen ma guddiyadiina iyaga gacanta ka taagay marka mudanayaal waa inaynaan markhaanti beenaale qaadan guddoonkuna waa inay arrintan lagu hogaamiyaan waa inay ahaada situation jira aynu nahay sharciyadana waa inaynu ilaalinaa waa bilaa sharci haddaynu arrintaas wax ka qaban weyno laali weyno sharciga noo ogol qanuunka noo ogol dastuurka noo ogol wixii dastuurku laalay waa laalnay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.